qaar ka mid ah wadayaasha iyo waliba kaariyaasha gaadiidka kireeya ee gaadiidka yaryar ee loo yaqaan noohada ee u kala baxa gobolada dalka sida Hargeysa iyo Burco ee ka baxa magaalada Berbera ayaa cabasho ka muujiyay shaqadii gaadiidkaasi hayeen oo ay sheegeen inay kala wareegeen shirkado saddexa oo basas ku waarida ama ku qaada dadka kuwaasi oo lagu kala magacaabo shirkadda Bari iyo Galbeed, shirkadda Salaama iyo waliba shirkad cusub oo dhawaan soo baxday oo lagu magacaabo Najah. waxaana wadayaasha iyo waliba nimanka gaadiidka u kireeya ee ku sugan istaanka gaadiidkaasi yaryar ee magaalada Berbera ay cabashadooda ku saleeyeen in shaqadii ay hayeen lagala wareegay isla markaana aan waxba laga siin shaqadii lagala wareegay iyagoo cabashadooda ku saleeyay in guud ahaan gaadiidkii yaryara ee ka bixi jiray istaamada u kala goosha Hargeysa iyo Burco ee Berbera ay shaqo la'aan taagan yihiin shaqadoodina lagala wareegay. waxaana wadayaasha iyo waliba kaariyaashani baaq u direen maamulka gobolka iyo ka degmada iyo waliba xukuumadda sare ee Somaliland iyagoona ugu baaqay in shaqadaasi wax laga siiyo ama shaqadoodii dib loogu soo celiyo. waxaan cabasho balaaran ka muujinaynaa basaska barakaca iyo xasuuqa lagu hayo haddaan nahay dadkii deegaanka ee nimanka aan deegaanka u dhalanina ay wakiilka ka yihiin ay hogaaminayaan annaga oo dadkii deegaanka ah waxaanu ka cabanaynaa in dhibaato nimanka naga haysato waxna aanay nooga tegin loohooyinkii oo 76 gaariya oo dad laga masruufo caruuro iyo ciyaalo iyo dad masaakiin laga masruufo oo ay beelo ku nool yihiin iyo reer ku nool yihiin waa loo awood sheegtay cid wax ka qabanaysa ma jirto annagu dadkii deegaanka u dhashay kaalinta ay meesha weligood joogay baanna niman aan deegaanka u dhalan ayaa noo awood sheegtay halkaas xafiis looga furay waa laga wareegay cid wax noo qabanaysa ma jirto liisan baan leenay dawladdu naga cashuurtaa cid waxba naga nidayso sanad walba waxaan markaa ka cabanaynaa oo maamulka u sheegayna gobolka in hoos loo eego oo arrinteeda wax laga qabto runtiisa sidaa uu sheegay saaxiibkay arrinka dhab weeyaan wax cadaaliya wax la ka ogol yahay haddaan nahay deegaanka magaalada ma jirto nima wadaadaaba xafiis u furtay kowdhe haddii aanu ka hadalnana magaaladu sheeganayaaba nololnaya haddaanu iminka gaari la tagnaano ka hadalno rabo askari buu noo dalbanaya askarigu wuxuu naga kaxanaya anagoo deegaanka oo magaalada u dhalanay hudaalka shidire hortiisa ayaanu ku xidhay loonaya fartaa ma tegi kartaan umana dhawaan kartaan kowdhe waxa weeye cabashadaasaan muujinaynaa dadku waxa weeye waa xoro qofku doonaba raacaya laakiin in nolol awood sheegto ma aha ninkii wadaadka wuxuu wataa askari anagu waxunay kaarintii sharciga iyo liisamada lahayd baanunay hase yeeshee waana lagu soo duulay aanaan fahmin xukuumadda waxaan ka codsanaynaa inay wax ka qabato arrintaa sharci bay naga qaadaa liisan bay naga qaadaa marka kuma qorshaysnin basaska iyo wixii qiilkooda kuma qorshaysnin marka dawladda waxaan ka codsanaynaa inay wax ka qabato waxaan ka hadlayaa shirkadda Bari iyo Galbeed in niman khaas ah xafiiskiina uu leeyahay yaa miskiinkii ka maciishadoonayay kalluunka agtiisa ku shiilayayna wiil kalluunkiina ana samaysanaya yaa agtaydaana lagama samaysan karo oo askar uu soo kaxaysto oo uu xidho oo uu yidhaa xataa gaadhiga halkaas soo istaago qofka binaadamka israa ka soo iibso meesha tag yidhaa uma talaabi kartid oo ma tegi kartaan taana waxa ugu wacan ninka la yidhaa buraale ee garhka dheer leh kaana waxa weeye haddii wax laga qaban waayo camburlaan anagu wax kaga qabanana waxaan ugu horraysiinayaa barnaamijka la yidhaaho basaska iyo noohooyinka halkan gobolka way ka cashuurayn noohooyinku cashuur bay bixiyaan mid dawlad hoose mid liisan iyo mid lix biloodaba oo 6 bilood laga qaadaba wax walba waa lagu soo dalacaa waxa laga qaadaa 180 halkii 30 ku laga qaadi jiray cashuurta lamana ogola magaalada inuu nafar ka qaado oo looma ogola waa loo diiday halkan oo laga soo xidhay maamulka magaalada iyo degmada ugu wacan waxaan dii sheegayaa oo aan idin leeyahay meel walba aan u tagnay meel walba aan ka ashkateenay waraaqi way yaalin nimka ashkatadu in laga qabto basaska oo baableeshika laga qabto wax loo sheego meel loo sameeyo
magaalo ma yeelato saddex istaan saaka waxaanu ka hadlaynaa arrin gobolka saaxil ka dhacday baryahan dambeba gobolka saaxil oo noqday goob la kala goostay oo la kala qaybsaday nin waliba uu meel qaatay cid jilicsan aan la eegayn leerkii uu nin goostay haamiin nin goostay dekadii nin goostay lookalkiina nin qaatay tii ugu dambaysay oo ahaa dadkii shacabka ahaa ee kiraystayaasha ahaa ee ku noolaa deegaanka oo shirkado loo soo kiraystay la keenay shirkado dabeetana shirkadihii ay qabsadeen magaaladii dadkiina lagaga tegey suuqa arrintaas oo arrin ku haysa salka madaxda gobolka saaxil ilaa heer gobol ilaa heer degmo arrintaa waxaanu leenahay sidaasi waa deegaan kala qabsi waa arrin xun arrintaa waxa laga qabtaan leenahay oo ha laga joojiyay arrintaa waxaa anigoo ah boqor maxamed axmed yaasiin gobolka dhalinyarta gobolka saaxil waxaan halkan cabasho weyn uga soo jeedinayaa oon leeyahay wax laga qabto arrimo badan oo xaab ahaan ama deegaan ahaan waxyeello ku ah run cabatin badan oo ka yimi bulshada deegaanka ee gobolka saaxil weliba berbera kuwaas oo ah maanta waxaa shirkado iyo kambaniyo ayaa la soo bilaabayaa kambaniga iyo shirkaddu marka ay bilaabmaan waxa ay bilowgaba la weerarayaa qaabkii danyar ay masaariif ugu beeli lahayd ama kuwii ha noqdaan kaariintaa ama xabsadaha ama kuwii noohooyinka yaryar watay ha noqdaan kuwii tagaasidaaba ku baktiyay riboodkiina wax ka soo qaadi jireen laga xidha oo maanta aan manfacay ku haystaan jirin dekadda kama xamaashaan oo dad kama soo qaadaan iyaguna awdka uga baxeen markaa dee waxaan leeyahay maamulka degme ahaan iyo gobol ahaanba in hoos ay u eegaan bulshadooda ay maantida ah ay mas-uulka ka yihiin waxaa jirta haddii aan taabto basaskan shirkadaha waxaa muhiim ahayd bilowgii golaha deegaanka waxay tallaabadii ugu horreysay aan isku ogeyn deegaan ahaan iyo mas-uuliyad ahaanba waxay ahayd inay xagga hoose magaalada daaroole iyo barwaaqo oo barakac ku dhacay in lagu celiyo magaalada si ay magaalada dib u soo abaasho maantana waxay maraysaaba garawaagi bay dhaaftay dibiga iska eeg meel la yidhaabaaba laga raraayo iyo meelo kaloo inaan garanaynba markaa waxaan leeyahay bal maamulkii degmada ama gobolka bal hoos ha loo eego magaaladii hoose egaska ahayd maxamed cabdilaahi soo fadhiistay Somali Cable TV magaalada Berbera.